Asalaamu calaykum Sheekh Usul waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo. Sheekhayga waxaan ka mid ahay horta darawaliinta gaadiidleyda ku safarta Muqdisho ilaa Baydhabo. Wadadii Muqdisho iyo Baydhabo way jaran tahay, gaadiidaa la gubay. Dagaalo beeleed ayaa ka jirta 2 sano oo ilaa hadda cid xaggis ay jirin oo laga aaminsan yahay. Maamul koonfur galbeedna oo ka jira oo ka aamusan. Anaga cashuuran ibna masaakiinan nahay, maalin walba nala dhibaateeyaa. Mas-uuliyadda yaa qaadaya dadka masaakiinta, mas-uuliyaddiisa yaa aan qari adduunya la weydiinaya amba maxkamad. وعليكم السلام إيجاركي وما صنت وكفامي وحاتري waxaan ka mid ahay darawaliinta gaadiidleyda ku safarta Muqdisho ilaa Baydhabo wadadii waa haleysanta ma la mari karo mas'uuliyaddiisa yaa qaada iyaarkii waa iska caddahay mas'uuliyadda waxaa qaada madaxda koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweyne Cabdicasiis Laftigreen asaa laga rabaa rasuul sallallahu alayhi wasallam xadiis lagu wuxuu yiri kullukum raaci wa kullukum mas'uulun an ra'yati waxa qof kasta oo sheegay mas'uul loo dhigo asaa laga rabaa inuu badbaadiyo marka Cabdicasiis Laftigreen asaa cunsuri asaa dadkii Soomaaliyeed oo dadka la geli asaa beesh gaal jecel kamid ma noqon karto uu yiri maamulkan koonfur galbeed asaga hadda marka gaadiidkan diyaarad asaari abuubi dhibaatadii ka timaadana Cabdicasiis Laftigreen madax aakhir iyo adduun weydiina ninkaas dadkii oo kala foqoq ma ima xaatiri oo kala foqoq dhibaato dhan Cabdicasiis Laftigreen mas'uuliyadda qaada iyaarkii oo maasan salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala